buurta Everest waa midda ugu dheer caalamka waxayna sadxiga ama dusha badda ka sareysaa 9 kiiloomitir. buurta Everest ayaana ah midda ugu dheer buuraha silsiladda ah ee Himalayas. Everest waxaa laga helaa ama ay dhacdaa xadka u dhaxeeya Shiinaha iyo Nepal, waana buur u qaybsan laba dhinac oo kala raacsan Shiinaha iyo Nepal. buurtan waxaa loogu magac daray sahmiye British ah oo lagu magacaabayay George Everest, waxayna ilaha qaar sheegaan inuu yahay shaqsigii ugu horeeyay ee sahmiyay buurtan sanadkii 1841. waxayna ahayd marka sida rasmiga ah magacan loogu bixiyay sanadkii 1865. buurtan waxay leedahay magacyo kale oo wadaniya ama ay u yaqaanaan dadka ka agdhow buurtan, sida dadka degan waqooyiga buurtan ama dhanka Shiinaha ee la yiraahdo Tibetan, waxayna buurtan u yaqaanaan magaca Chomolungma. dhanka Nepalna waxaa looga yaqaanaa Sagarmatha. cabirka jooga buurtan marxalado iyo doodo kala duwan ayay soo martay, balse sida maanta la isku raacsan yahay waa inuu jooga buurtan yahay 8848 mitir. 1924 ayay dadku si rasmi ah u bilaabeen in ay tagaan halka ugu sareysa buurtan, wuxuuna qofkii tagaa ku qasban yahay inuu qaato 3 meelood meel oksijiinka uu qaadan jiray. Everest waxay soo jiidataa ama xiiseeyaan dadka buuraha kora, laakiin sidoo kale waxay qaabishaa qaar aan khibrad badan u lahayn buurfuulidda oo ugu dambeynna ku geeriyoodaan ayagoo isku dayaya in ay tiigsadaan halka ugu sareysa. tan iyo 1924 waxaa ku dhinteen dad ku dhow 300 oo qof. halka ugu sareysa ee buurtanna waxaa la tagay in ka badan 10,000 oo jeer, waxaana tageen dad ka badan 5,000 oo qof, waana dad isugu jira caruur iyo ciroolaba iyo xitaa kuwa naafa ah. waxaa jiraan rikooro badan oo la dhigay kuna saabsan buurtan, sidoo kale waxaa jiraan dad isku daya inay dhigaan rikooro cusub, halka kuwa kalena ay isku dayayaanba inay jebiyaan kuwii hore. 9 May ee 1953 waa markii ugu horeysay ee dadku gaareen halka ugu sareysa buurtan, waxaana rikoorkan dhigeen Tenzing Norgay oo u dhashay Nepal iyo Edmund Hillary oo u dhashay New Zealand, waxayna ka koreen buurtan dhanka koonfureed ee Nepal. laakiin 25 May ee 1960 ayay ahayd markii ugu horeysay ee laga koray dhanka waqooyi lana gaaray halka ugu sareysa, markaas oo ay ku guuleysteen Nawanga Gombu oo asal ahaan ka soo jeeda India iyo 2 buur korayaal oo Shiinaha ka soo jeedaan. Nawanga ayaana ah sidoo kale shaqsigii ugu horeeyay ee 2 jeer gaara halka ugu sareysa Everest, laakiin waxaa yaala rikoor ka duwan midkan oo uu dhigay nin Talyaani ah oo lagu magacaabo Reinhold Messner, kaasoo noqday 1980 shaqsigii ugu horeeyay ee fiinta sare ee buurtan gaara asigoo aan sidan qalabka keediya oksijiinka. qofka ugu daada yar ee gaaray dusha sare ee buurtan waa Jordan Romero oo gaaray 23 May ee 2010, waliba asigoo jira 13 sano iyo 10 bilood. wuxuu ka fuulay dhanka waqooyi, waxaana la socdeen labadiisa waalid iyo 3 qof oo ka soo jeedaan dadka la yiraahdo Sherpa oo ka mid ah dadka degan dhulka buuraha ah ee Nepal iyo buuraha silsiladda ah ee Himalayas. laakiin waxaa 2014 sigtay rikoorkan gabar India ka soo jeeda oo lagu magacaabo Malafaz Barna, waxayna jirtay 13 sano iyo 11 bilood. hal bil oo kaliya ayayna ka weyn tahay Jordan Romero. haddaba waa kuma qofka ugu daada weyn ee gaaray halka ugu sareysa ee uu baraf ku ceegaago? rikoorkan waxaa haysta nin u dhashay Japan oo lagu magacaabo Yoichiro Mira, wuxuuna 23 May ee 2013 uu noqday shaqsiga ugu daada weyn ee gaaray halka ugu sareysa, wuxuuna jiray kolkaasi 80 sano. midda cajiibka ah waxay tahay inuu horey u sameeyay mid la mid ah rikoorkan. 2003 wuxuu noqday shaqsiga ugu daada weyn ee gaaray halka ugu sareysa. sidoo kale rikoorkan asiga ayaa iska jabiyay 2006 iyo 2007, balse 2008 waxaa ka jabiyay oo kala wareegay nin lagu magacaabo Minba Hadar oo 77 sano jir ahaa. laakiin Yoichiro waa uu soo rogaal celiyay, wuxuuna la wareegay rikoorkan 2013. midda gaarka ahse waxay tahay qofkii ugu horeeyay ee dumar ah ee gaarta halka ugu sareysa waxay ka soo jeedaa Japan. sidoo kale haweeneyda ugu daada weyn ee gaartay halka ugu sareysa waxay ka soo jeedaa Japan, balse shaqsiga aan looga daba hadlin koridda buurtan gaar ahaan halka ugu sareysa wuxuu ka soo jeedaa Nepal.
waana Bazanga Dawalama oo 22 jeer koray halka ugu sareysa buurtan. waxaa jiraan dad naafo ah oo gaareen fiinta sare ee buurtan sida Tom Whitaker oo noqday shaqsigii ugu horeeyay ee naafo ah ee hiigsaday heerkan. sidoo kale Eric Vermeer wuxuu 2001dii noqday indhoolihii ugu horeeyay ee fiinta sare ee Everest gaara. dadku waxay ku qaadataa inay buurtan fuulaan 40 ilaa 64 maalin, waxayna xirtaan dhar iyo kaba buud ah oo u gaar ah. ilaa 1999kii dhimashadu aad ayay ugu badneyd buurtan, balse wixii ka dambeeyay sanadkaas waxaa la bilaabay in la saadaaliyo cimilada isla markaana la adeegsado qalab casri ah. waxayna qiyaastu sheegaysaa in boqolkii qof ee isku dayda inay dusha sare ee buurtan gaaraan in ay 4 kamida u dhintaan sababo kala duwan. waxayna dadka taga buurtan helaan internet aad u xawaaro sareeya, waana mid aad u camiran xilliyada qaar gaar ahaan dhamaadka bisha 3 ilaa dhamaadka bisha 5. waxayna dowladda Shiinaha shaacisay sanadkii tagay in ay meelo kala duwan oo buurtan ah ay musqulo ku meel gaar ah ka hirgelin doonto. 18 meel ee laga koro buurtan waxaa lagu arkaa qashin aad u badan oo 50 tan gaaraya. sidoo kale waxaa lagu arkaa dad dhintay oo 200 ku dhow. laakiin ogow sidaasi oo ay tahay 2004 waxaa fiinta sare ee buurtan isku guursadeen lamaane ka soo jeeda dalka Nepal. cid la ogeydna ma aysan jirin qorshahooda guur, waxayna kadis uga dhigeen dadkii la socday. dadka doonaya inay fuulaan buurtan waxaa laga qaadaa lacag xooggan oo u dhaxaysa 28 ilaa 85 kun oo dollar. haddii uu qofka meel khatar badan ka fuulayana waxaa laga yaabaa in laga qaado lacag ka yar 20 kun oo dollar.